السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتو عنا وناكسن dhegeystayaal meel kasto daafaha caalamka ka joogtaan kula soo dhawaada waraysi gaar ah oo aan la yeelan doono hogaanka arrimaha siyaasadda ee jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya Jowxo halgamaa Nuur Faatule. Waraysiga toddobaadkan wuxuu daaraan doonaa in aan diiradda ku saaro dib u dhaca shirka shacabka deegaanka Soomaalida kaas oo muddooyinkii u dambeeyay uu ka dhashay murano badan iyo sidoo kale soo bixitaano fikirro kala duwan. Shirkan ayaa loo balansanaa inuu ka hor qabsoomo, balse shirka ayaa laba jeer oo hore dib u dhacay, haddana xilligii loogu balansanaa aan qabsoomin. Haddaba waraysiga waxaan diiradda ku saari doonaa shirkaas, waxaana barnaamijka iigu amarta maanta halgamaa Nuur Faatule oo ah madaxa arrimaha siyaasadda ee Jowxo. Nuur Faatule, kusoo dhawow wakaaladda warbaahinta ee Ogaden News Agency ONA. waan dhawahay aad iyo aad baad Mustafa u mahadsantihiin. Nuur, halgamaa bal ugu horeyn waxaad warbixin faahfaahsan ka bixisaa shirka loo malalansanaa inuu qabsoomo iyo shirku wuxuu ahaa bal shacabka mar badan buu dhagaha ku dhacdhacay aragtiyo kala duwan oo ka soo baxeen. Shirku muxuu ahaa loo balansanaa? bismillah alxamdulilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. mar labaad waad mahadsantahay Mustafa. shirkani wuxuu ahaa shir fikirkiisa ay lahaayeen dad Soomaaliyeed oo siyaasiyiin aqoon-yahan iyo waxgarad isugu jira ay Jowxana qayb ka tahay ama ay number 1 ka ahayd. shirkan xilli muddo laga joogo yaa la hindisay waxaana ka wada shaqaynayay aqoon-yahan iyo siyaasiyiin sidaan horeyba u sheegnay. ujeedada shirkuna waxay ahayd in danaha caamka ah ee ummadda Soomaaliyeed iyo mustaqbalkeeda heshiis guud oo ay dadka Soomaaliyeed heshiis ku yihiin in lagu sameeyo seeska loogu dhigo waxyaabaha aasaasiga ah: dhulka, dadka, danta, mustaqbalka iyo nolosha ummadda Soomaaliyeed iyo siyaasadda dadka deegaanka Soomaalida ee dawladda Itoobiya hoos yimaada sidii wax guud oo lagu wada midaysan yahay seeska loogu dhigi lahaa, iyadoo la dhowrayo kala aragti iyo fikir bedelaanshaha guud ee siyaasadeed oo xisbi, shaqsi, xukuumad manaahijtooda gaarka iyagoo gaar u yihiin, haddana seeba wax aynu ka midaysannahay oo aynu wada ilaashanayno sidii loo heli lahaa. shirkani sidaasoo ahaa fikir aad iyo aad u qurux badan buu ahaa. doorna muddaanu ka soo ahayn ama halbowliya gundhig baanu u ahayn, haddana usii ahaanaynaa. shirka marka si guud sidaasuu shirku ku salaysnaa. Nuur, waxaad ka warbixisay shir meeqaam weyn ku fadhiya. maxaa sababay intaasoo jeer inuu dib u dhaco shirku? waa su-aal muhiima. waxaa xusid mudan dadka Soomaaliyeed ee ku nool mandaqadan weligood arrimahooda masiiriga ah inay ka wada hadlaan umana ayna madax bannaanaanin, haddana uma madax bannaana. dadka Soomaaliyeed waxaa jira mar walba dad Soomaali ah oo iyaga ka mid ah oo danahooda gafsiiya. dadka Soomaaliyeed waxaa jirta mar walba cid kasta oo cadow ku ihi bridge ay u soo marto si ay danahooda u gafsiiso oo ayna mustaqbalkooda iyo aayahooda u jahaynin. waxaan isleeyahay ama aan ka Jowxo ahaan aaminsanahay calaamadaheedu noo muuqdeen oo aanu in badan soo arkaynay intii ay hawshani socotay iyo ka horbana aan ka warhaynay inay jirina doonaan dad doonaya inaan danaha Soomaaliyeed la gaadhin, dad doonaya in ayna dadka Soomaaliyeed tashanin. saasaan isleenahay. ma doonaya inaan cid gaara farta ku fiiqo, laakiin dadka Soomaaliyeed danahooda umana madax bannaanaanin weligood. kanina wuxuu ahaa isku day ama uu yahay isku day aan rabno inaan dadka tooshka ugu ifino inay dantooda ka wada hadlaan oo mar walba wax loo sheegay uun ayna sugin iyagu inay wax sheegan karaan oo wax qorshaysan karaan. aan rabno inaan hormuudka ugu noqono waana ujeedooyinka ay ONLF oo aasaasan tahay ee ay u dhisan tahay
in dadka Soomaaliyeed ay danahooda ka tashadaan. Marka in short waxaan isleeyahay waxaa jira dad danahooda inaynan dadka Soomaaliyeed ka tashanin ka shaqeeya ama looga shaqaysiiyo. inta inaan barnaamijka bartamiisa uga banoor waxaad soo jeedisay dhaliil dad iyo badan soo jeedisay ma la dhihi karaa caqabad oo wana laftirkeedu qayb ka noqoto in shir ku dhigo maya saan anagu isleenahay maya waxaan rabnaa inaan hadda cadayno horeyna u cadaynay in aan arrinta fikirkeeda dadkii curiyay kamid ahay shir ay gudida fulinta ee ONLF weligeed ay Addis Ababa isugu tagtay shirkii keli ah ay Addis Ababa isugu tagtay ayay gudiga fulinta ee ururku soo hintistay arrintaas haddii aan annaga ONLF ahaan shirkaa qabanqaabina maadaama oo loo arki karayo in wax urur gaar ah uu wata yahay urur siyaasadeedii yaan fikradda waxaan la wadaagnay aqoonyahan iyo waxgarad iyo siyaasiyiin Soomaaliyeed iyo xataa xukuumadda tiis ayaana develop garowday oo horumartay oo ay dadka Soomaaliyeedna si fiican u soo dhaweeyeen taas ayaanu ilaa iyo haddana ka shaqaynaynaa dadka Soomaaliyeedna waxaan rabaa inaan mar labaad kuugu celiyo ONLF waxay u aas-aasan tahay heerkeeda kamida barnaamijkeeda siyaasiga ku jira dadka Soomaaliyeed danahooda inay iyagu u madax banaanaadaan oo ay iyagu ka fakaraan aan loo fakarin laakiin waxaan isleeyahay tuubadu dhinac kale nagaga furanta hogaanka siyaasadda oo wana batay waxa la sheegayaa in ay saamileyda siyaasadda caqabada badan oo caqabadaha ugu badan ee shirkan loo horista ee uu dhici waayay ay kamid tahay maxay tahay caqabada la sheegaya ka timaatay saamileyda siyaasadda ama kaliftay inuu dib u dhaco shirku marar badan waxaan jeclahay wax walba ka hor inaan ammaan ballaaran u soo jeediyo waxaan u malaynayaa horta su-aashaadani waxay daba socotaa waraysigii xalay Dr. Gani oo ah gudoomiyaha guddiga hawsha qabanqaabinaysay oo saxaafadda la wadaag waraysigaas oo kelmadiisu ay ahaayeen saamileyda siyaasadda caqabada nagaga yimid ayaan dib ugu dhigaynaa kolka ugu horeysa waxaan rabaa inaan doctorka ammaan ballaaran iyo sharaf iyo haddii ilaaha awoodda la raalli ka noqdo inaan dusha uga tuurno aadna aan runtii raalli uga ahayn dadaalkiisa iyo siduu danaha ummadda Soomaaliyeed ugu guntaday isaga iyo tiimkiisa iyo rag fara badan oo la shaqeynay Dr. Gamaadiid waa nin runtii Soomaaliya jecel inay dadka Soomaaliyeed wax noqdaan hanti ummadeed istaahila inuu ummadda Soomaaliyeed wax u tilmaamo wax u maamulo mustaqbalkoodana uu jiheeyo waxaana isleenahay waa dadka hantida ummadeeda ee ku habboon inay ummadda qiyaadadeeda wax ka qabtaan iyo masaalixdooda ka taliyaan aad baan doctorka iyo tiimkiisaba u ammaanaynaa doctorku arrintaasuu sheegay intaa ka badan oo uu dhihi karay na wadciga siyaasiga ah iyo marxaladda lagu jiro iyo meesha la joogo midna uma saamixi karaan waxaan isleenahay doctorku waa oday reer u weyn iyo umlisaha weyn midna say wuxuu ogyihiin uma sheegaan waa nin weyn waa gobaadsaday waa aqoonyahan intaa ka badan oo awooday ma jirin ilaahayow intaanaan maanta awoodaa bay ka tahay saasaan doctorka waragna waana garsiinayna duruufteedu ku sugan yahay saamileyda siyaasadda marka la yidhaahdo su-aashaadii usoo laabto saamileyda siyaasadda ee hoos timaada xukuumadda Ethiopia waa dad aad u fara badan waan isleenahay waxyaabo uu carabka ka duwan oo uusan doonaynin inuu carabka ku qabo iyo dhibab la soo kulmay kuwa fara badan oo xogogaal karnahay oo xogteeda wadaagno isnala wadaageen tiimkiisu ay nala wadaageen way jiraan laakiin erayga uu dhexda dhigay ee uu dadka oo dhan dhex dhigay eeda uu dadka oo dhan ay dhex dhigeen qoladaasi waxaan isleeyahay meesha kuma haboonayn si kale in loo dhigay ahay dhaqanka
Ethiopia iyo maamuladeeda laga bartay ayaa wuxuu hadda aan rabo doctorka inaan ugu soo halqabsado laakiin xukuumaddii EPRDF oo kale dad baa waa nabadiid waa ONLF waa maxay baa loo soo xirxirayaa fara badan 30 ruux 35 ruux waa loo imanayaa garsooraha maxkamadda marka la keenayo waxaa la leeyahay 200 oo sano dadka u qayb qalin iyo buug inta la qaato waa imisa ruux waa 50 ruux 200 oo sano u qayb calculator baa la qaadanayaa min misay u gaadhay min 20 min 13 min 14 bay dadka u gaadhaysa isagoo ruuxa kiiskiisii la qaadin oo dadku dambiyadoodii iyo kiisaskoodu say u kala bedbedelan yihiin aan leeyahay calculatorkaasay qaateen baan u malaynayaa eed aan dadka wada dhex weelin cid gaariha ay leedahay baan isleenahay duruuftu way ku kaliftay inay sidaa hadalka u dhigaan marka cadaaladdu bal kolley intii ay u gaargaadhay haddayba dadka isula ekaysiiyeen eedaha inta ay u gaargaadhay iyo cid walba inta kusoo agaagtay iyagaa inoo sheegi doonaan 20 30 midba wixii kusoo aaday waxaan isleenahay markaa arrintaasi saas weeye saamilayda siyaasadeed ee carqaladuhu kaga yimaadeen ama dhibaatooyinka iyo isfaham darrada ay ka yimaadeenna waxaan isleenahay bareeshar fara badan oo guddiga fuulay baa jira wax fara badan oo ka afgobaadsadeen baa jira wax fara badan oo duruuftu qasbaysa inay sidaa unu hadlaan oo intaa ka fara badan hadli karin baa jira marka waan garsiinaynaa hadalkoodaas intaa ka badan ma ka odhan karno su-aashantiina ka gudbin saamilayda siyaasadeed ayuu guddida qabanqaabadu yidhi eed baa kaga dooday wax eeda saamilayda siyaasadda uma haysamaya haddaan ku fahansiiyo wax caqabada saamilayda siyaasadda shirweynuhu uu qabsami waayay kuma dhicin miya haddaan sidaan u fahmay ay tahay saamilayda siyaasadeed caqabadi ma ka soo gaadhay guddiga ay shaqada la wadi weydo hadday tahay waan qabaa inay jirto laakiin waxaan ka hadlayaa waxaa weeye eedda dhexda la dhigayo saamilayda siyaasadda oo dhan la dhex dhigayo yaa waxay la mid tahay cadaaladii EPRDF ee ahayd 200 oo sano oo xabsi ah 50 ruuxa loo qaybiyo yay noqotay taasina duruuftaan isleenahay way ku kalifaysaa guddiga wadcigay ku jiraan bayna intaa ka badan odhan karaynin hebel baa gardan ayna si tooso ama hebel baa culayskaana saaray ayna si gaara u odhan karaynin marka saasaan isleenahay caqabado iyo faahfaahinno dheeraada baad ka bixisay shirka wuxuu dhici waayey sababihii u qabsoon waayey muddada 3 jeer oo baaqday sababihii keenay waxa ay dhaheen guddiga doorashadu marka ka ooweyna laf ahaan idinka oo hoggaankeeda arrimaha siyaasadda ah Nuur Faatulle raje intee leeg baad ka qabtaan shirkaas in haddii dib loo qaabeeyo inuu dhici karo mise ma isleedihin ka oona laf ahaan u dhacaya shirkaas way fiican tahay oo dadku rajada waa nolosha barkeed baa la yidhahdaa ama waaba dhammaanteed ruuxa bidini aadamkeena inuu optimistic noqdaa la rabaa oo uu waxa wanaagsan rajeeyo shareecada islaamkuna saasay tilmaamaysaa dadku inay wanaag rajeeyaan waan u halgamaynaa weliba rajadanada basameeya dadka Soomaaliyeed inay dantooda ka hadlaan dantooda iyagu ay qorsheeyaan mustaqbalkooda iyagu ay sheegareeyaan caruurtooda ay u fakaraan ahdi qarameedyo dadka Soomaaliyeed ay leeyihiin yaano xariiqimo aan la talaabi karin inay dadka uusan ruux Soomaali xagga u talaabi karin inay dadka Soomaaliyeed samaystaan rajaan ka qabnaa waxaan rajo ka qabnaa weliba guddigan uu Dr. Gani gudoomiyaha ka yahay oo dad wanaagsan ah dad aad u wanaagsan ah oo doonayna inay aan rajo badan ka qabnay inay hawshan han weyn u qabaan inay ku guuleysan doonaan waana kala shaqaynaynaa haddii maanta ay suuro gali weydana maalin maalmaha dambe inay dadka Soomaaliyeed waa isku day wanaagsan inay dadka Soomaaliyeed ku guuleysanayaan riyooyinka noocaas oo inay dadka Soomaaliyeed dan yeeshaan aad baan uga rajo qabnaa rajadanadu way fiican tahay guddigana waxaan leenahay ha niyad jab inay hore u socdo guntii iyo gabagabadii barnaamijka toddobaadkan aan kula fakurayna shirweynihii loo madalsanaa inay qabsadaan shacabka deegaanka Soomaalida iyo maraynaa si guud ONLF oo hoggaankeeda arrimaha siyaasadda tahay maxay xal u aragtaa waxaan xal u aragnaa iyadoo waxaa la yidhi gacantaadu hadday kaagaga dhacdo sakal laguma soo dhuftee waa lagala soo tartiib baxaa laguma soo dhufto way kaa jabaysaa gacantooda haddii aan iscriticize garayn iyo inaan murano iyo inaan haaraana hadday noqoto meel ma gaadhayno waana sida dadka ujeedooyinka shirka gadaata lagu curyaaminayaa lehi ay doonayaan waxaan qabnaa guddigu inayna niyad jabin waxaan xal u aragnaa guddigu inayna niyad jabin wax la isku haya haddaad aragtana
ama cid baa wax meesha ku jira ka saaraysa ama cid baa wax meesha aan ku jirin soo gelinaysa. waxaan is leenahay dadka Soomaaliyeed aqoon-yahanka siyaasiyiinta iyo waxgarad iyo ganacsatada ummadda saameyn ku leh ururada bulshada rayidka inay wada eegaan farta la isugu fiiqo cidda wax aan ku jirin soo gelinaysa ama wax ku jira meesha ka saaraysa. inaan si tartiiba ciddaas ula hadalno ula fadhiisano ula niqaashno dadka Soomaaliyeed isagoo dagaalamaynin oo aan nidhaano walaalow danteenu sida kuma jirtay kada haddii uu naga diidana dadka Soomaaliyeed inay markaa iyagu tartiib iska qabtaan. waxaan is leenahay duco moos daad inaga soo galayaa jira meelo ay tuubooyin kale inagaga furan yihiin baa jira. dadka Soomaaliyeed cadawyo fara badan bay leeyihiin oo soo jireena meelo la yaqaano in loo soo mari jirayna way jiraan oo taariikhdii hore inaan wax ka baranaa loo baahan yahay. meelahaas inaan iska gufayno isha inaynu ku hayno inaan nidhaano hooy waanu noolahay adduunku kii shalay maaha maanta daraad maaha laysuma yeedhinayo xilligii wax laysu tibay dictatorada iyo qabka iyo isla weynida dadyowga qaarkood ay doonayaan dadka Soomaaliyeed inay ku haraas gareeyaan inaan maya nidhaanaa loo baahan yahay. waxaan is leenahay ummadda Soomaaliyeed meeshay maanta waa inay hankeeda iyo qabkeeda kor u qaado cid kasta oo Soomaali yihiin inuu waxaa dardaaranka iyo kelmadda ugu dambaysa oranaya ay tahay ruuxa Soomaaliga inuu han iyo qab isagu yeesho alkaba ninka Soomaaliga ee danaha ummadda Soomaaliyeed in cid kale lagu shirkoobin baa qabnaa. waxaan ku talinaynaa dadka Soomaaliyeed ruux waliba dalkaba idinka iska leh dawlad maad u noqotaan waxa ummadahan aan la wadaagno inaan wax cad oo mowqif cad aan ka istaagno waxa aan anagu leenahayna in interfere lagu soo sameeyo inaan diidno. cid kastoo nahay xukuumad xisbi odayaal waxgarad aqoon-yahan ganacsato dadka Soomaaliyeed hanka iyo qabkoodii inay nooleeyaan aynu ogaadaan Soomaalinimada inay dadka kaga sareeyaan iyagu dhulkooda leeyihiin iyagu xaq u leeyihiin xaq dastuuri ay tahay inay maamulkooda iyo go'aamadooda iyagu gaaraan. yani isleenahay ahbad mahadsantahay. kaasina wuxuu ahaa hoggaanka arrimaha siyaasadda ee jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya Jowxo halgamaan Nuur Faatulle oo toddobaadkan waraysi aan kula yeelanay xarunta guud ee wakaaladda warbaahinta ee Ogaden News Agency oona waraysiga toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Mustafa Maxamed Cilmi dhanka farsamadana waxaa iga caawiyay Xadiis Macalin iyo sidoo kale Axmed. intaan ku kulmi doono barnaamijkan mid ka xiga waxaan idin leenahay aniga iyo bahda oona iyo sidoo kale hoggaanka arrimaha siyaasadda ee ONLF halgamaan Nuur Faatulle. wassalaamu calaykum.